Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaynu ku eegi doonaa qaybta kale ee opposite-ka ku ah discount allowance-ga ee ka midka ah settlement discount-ka. Waa haddii supplier-keenu inoo sameeyo invoice-keena discount. Tusaale ahaan, waxaa layna siiyey invoice ay ku qoran tahay $100, waxaana laynoo sheegay in aynu ku bixin doono $100 30 cisho. Waxay inoo sheegeen in ay naga deynayaan 5% invoice-keenii ka mid ah haddii aynu ku bixino 7 cisho. Haddii aynu markaa ku bixino 7 cisho, dabcan waxaynu qaadan doonaa 5%-ka discount-ka ah. Laakiin lama garan karo in aynu qaadan doono discount-ka uu supplier-ku inoo sheegay ilaa iyo inta aynu ka bixinayno invoice-ka ay nagu leeyihiin. Marka waxaynu odhan doonaa discount received waa discount ay inagu deeqeen credit suppliers-keenu. Waxa keliyata ee aynu ku ogaan karno in aynu discount leenahay iyo in kale waa marka aynu iska bixino lacagta ay suppliers-keenu inagu leeyihiin. Marka aynu bixino lacagta waxaynu ogaan karnaa haddii aynu leenahay discount iyo haddii kaleba. Halkan waxaynu ku aragnaa double entry. Haddaba haddii aynu ku bixino 7 cisho, waxaynu bixin doonaa $95 oo keli ah invoice-keenii. 5 ka dhimanina waxay noqon doontaa discount-kii aynu lahayn. Markaa waxaynu credit garayn doonaa si aynu uga jarno balance-ka bank-keena $95. $5 ee kalena waxay tegi doontaa account la yiraahdo discount received. Dabcan taasina waxay kordhin doontaa income-keenii, waana wax fiican marka ay sidaas oo kale dhacdo. Waxaanay inaga yarayn doontaa purchase expenses-keenii. Discount received-ka account-kiisa waxaa lagu daraa gross profit-ka isaga oo geli doona account la yiraahdo other incomes. Taasina waa wax inoo fiican inaga waynaynu jecel lahay discount received in laynoo sameeyo. Marka aynu wax soo iibsano, discount received-ku wuxuu inaga yareeyaa intii aynu siin lahayn supplier-keena. Markaana waxaa yaraan doonta payable control account-ka iyo sidoo kale subsidiary payable ledger-ka. Waxaanay yarayn doontaa amount-ka uu inagu leeyahay supplier khaas ahi. Haddaba waxaynu samayn doonaa sidii inoo caadada ahayd double entry marka aynu gaadhno cash payment book-ga, kaas oo ka mid ah books of pre-entry-ga oo aynu ku arki doono sida loo record gareeyo discount received-ka. Haddaba discount allowance-ka iyo discount received-ka waxaa keliyata ee aynu ku kala garan karnaa waa discount received-ku waa discount aynu helay inagu oo aynu ka helay suppliers-keena. Halka discount allowance-ku uu yahay discount aynu bixinay oo aynu siinay amba aynu ka deynay discount-ka customers-keena. Markaa waxaynu dib ugu arki doonaa labada casharada dambe insha Allah. Waxaanaynu maskaxda ku sii hayn doonaa in ay mar dambe inagu soo noqon doonaan.